madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dhagax dhigay bilowga mashruuca biyo-gelinta ee magaalada Togwajaale sida warkaas ay noogu faahfaahinayso wariyahayna Saada Sayid. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida wasiir dowlaha wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dowladda Itoobiya ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay bilowga mashruuca biyo-gelinta magaalada Togwajaale ee ku baxayso ku dhawaad 500 milyan oo birta Itoobiya ah. mashruucan waxaa lacagta ku baxaysa bixinaya dowladda federaalka Itoobiya gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta waxaana qorsheysan in muddo 18 bilood gudahooda lagu soo gabagabeeyo iyadoo la filayo in mashruucan ay ka faa'iideysan doonaan ku dhawaad 60,000 oo qof. odayaasha iyo shacabka magaalada Togwajaale ayaa ahmiyad ballaaran oo la siiyay ku tilmaamay biyo-gelinta maadaama laga jawaabay codsi iyo cabasho ay muddooyin badan qabeen. waad ogtihiin waxayna soo daashaday colaado kala duwan oo ka socday geyigeena kuwa ilaa 90kii iyo 80nadii aagan hadda aan joognaa maanta saameeyay oo la socotaan say ahaayeen kuwa intii ka dambeysay deegaano ka tirsan deegaankeenan gobolada hoose ha u badnaadaane aad u saameeyay kuwa haddaba socdo meelaha qaarkood sida galbeedka city iyo meelaha qaarkood ka jira iyo kuwa boqolaal sano soo jiray oo hardanadii dagaaladii geeska ka socday ee quwadaha waaweyn iyo dawladaha ka dhaxeeyay dadkeena ay gaarsiiyeen waxa oo dhan waxay keeneen inaan deganaansho la helin inaan horumar loo jahaysan inaan nolol abuurmin oo qax iyo lagu jiro maartay qaxar lagu jiro iyo keeneen arrimaha noocaas ah 40 sano u dambeysay waa ka soo kabanay hase ahaatee waxaa muuqda shufaalooyin muujinaya in nabadda iyo wanaaga aynu helay iyo furfuraanshaha dhanka saxaafadda ee la helay iyo caburintii laga daayay diinta iyo dadka ahlu diinka inaad moodo in hadda waxyaalo sababi doona waxyaalaad moodo inay sababi doonaan in dib halaagii lagu noqdo fafaalooyin ay muuqdaan oo ay ka mid tahay xag jirnimo la rabo inay ka xidhaysato deegaankeena oo calaamadeedu aan ka aragno meelaha qaarkood ururadii shalay xag jirnimada qaybta ka ahaa oo raba inay hukumihii dhigtaan masaajidada meelaha qaarkoodna maanta ay marayso waxaan Soomaali ku hadlaynin inuu tukan karinba salaada weyn loo galay qofkaan Soomaali ku hadlay haddii xitaa muslim yahay ay noo dambeeyaan kuwa gaaladii arrimaha noocaas ah ee soo xidhaysanaya runtii waa waxyaalo u baahan laga hortago xukuumaduna go'aan cad bay ka qaadanaysaa shacabkuna inay gacan nagu siiyaan fahmaan ujeedada arrinta loo sameeyo inay caburinayn ee ay tahay inaan ka hortagno xagjirnimadan walaalaheen Soomaaliya maanta waxay ku haysaa ogtihiin oo midhe haddii maanta ay fahaaladeeda aan laga hortagin si socon doonto waxaa kamid ah dadkaan kula afkaarta ahayn dadkaan kula diinta ahayn dadkaan kula jinsiga ahayn inaad dhibaatayso taas ugu horeysa yaa faalooyinka kamid ah waxa kale oo ururada magaca diinta ku gabanaya garab socda saxaafadii oo iyaduna si aan mas'uuliyad lahayn qaarkeed uga qayb galaysa oo u baahan in maartay la xakameeyo sharciga lagu soo celiyo lagu soo dabaalo waxa kale oo arrimaha nabadgelyada iyo ammaankeena inaan ku soo dabaalo u baahan ururada siyaasadda oo shaarasha ay xiran yihiin si nabadgelyo ay u halgamayaan ficilo aan waafaqsanayn ku dhaqaaqaya waan ognahay in dagaalo badan soo socdeen iyo halganno cusla oo tacadiyadii iyo dulmiga shacabka lagu hayay ay kalifeen qaarkoodna isu bedelay halganno hubaysan waan la socnaa duruufihii jiray ee waaga waa laga soo gudbay waxay doonayaan ahaadaan qiimeynteeda iyo aragtida laga qabana sida ay tahay cid walba way soo bandhigi kartaa laakiin xabad iyo dagaal iyo qori haddii shalay aan u aragnay in ujeedooyinkii ummadan iyo tacaddiga kaga bixi lahayd inaan lagu gaaraynin maanta aan dhagax tuur iyo muraayadii la jibo ku bedelo qorigii inuu iyaduna hadafyadii aynu rabnay gaarsiinay way caddahay haddii qori lagu xoroobi waayey dhagax tuur laguma xoroobayo sidaa daraaddeed in ururada noocaas ee lugta kule ee abaabulka xoogan ka gelaya mar walba dhacdo ama tuur masiiboodii weyneed ee nagu dhacday maalinkii dhaweeyay ee dilkii xildhibaan Jawaariyaha ahaato ama isku dhacyo yar oo kale oo muxuu ahaayay dadka dhexdiisa ka yimaada ama qaladaad markay dhacaanba duuba u bedesha fursad qalaasi ama dareen ku sameeyaan inaan loo dulqaadanin si adag dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka oo socdana talaabooyin ay ka qaadi doonaan shacab ahaan inaad la halgantaan arrimaha noocaas fikrada